waftigii uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka Ariga Orgi Qombolosh Geesa Weyne ee maalmahan baa safarka ku mariyay kobaha Arigu daaqo ayaa waxa ay maanta soo gaadheen Jeexa Qeydar Meygaagle kobtan oo mid ay ku xoogan yihiin taageerayaasha hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee daha Masterdeel Bari Weyne oo ah wanka Orgi Qombolosh kula loolamaya jagada madaxtinimada Ariga haddaba soo dhaweynta madaxweynaha ee kobtan Qeydar Meygaagle ayaa ahayd mid aad u hooseysa waxaana madaxweynaha soo dhaweyntiisa u soo baxay neefaf yar oo waliba u badan Orgi qabada waxaana wararka soo baxaya sheegayaan in Ariga qaarkood khasab iyo daba ka riix lagu keenay goobta lagu soo dhaweynayay madaxweynaha ariyaha kobtan daaqa waxay Orgi Qombolosh ku eedeeyeen in haba yaraatee kobtoodan aan wax horumar ka sameeynin muddadii uu joogay sidaas darteedna aanu istaahilin inay u soo baxaan dhinaca kalena doorashadii madaxtinimada ee maamulka Ariga ayay maalmo kooban ka hadhan yihiin iyadoo ay ku loolamayaan labada xisbi ee ugu awoodda badan oo kala ah xisbiga riyaha ee uu hogaamiyo Orgi Qombolosh Geesa Weyne iyo xisbiga idaha ee Masterdeel Bari Weyne oo madaxda ka yahay waxaana la filayaa in labadoodaas oo kaliya ay ku tartamaan jagada madaxtinimada Ariga kadib markii arafadii dhaweyd la iibiyay dhamaanba qublayaashii iyo malooliyadii sidoo kalena la tumay qabadadii yaryara halka wali daawadayaal nagala socotaan oo warbaahinteena baadiye TV wararkii durmana maanta intaas ay ku eeg yihiin waxaan idin leenahay ha moogaanina inaad share like iyo follow waxaad haysaanba aad nagu soo hurguftaan